hadday wada baraatamaan xaqiya badilkii isele waana gaalibin barkada hadday wada baraatamaan xaqiya badilkii isele waana gaalibin barkada haddaan culimada boqrani samahanagu boorinayn tintiyo kutubkii bilnaa barbaharta u soo laqimi naafluhuma baraarugin kuwa xaqa baalmaareye bentiyo medmadowga wada intay culimada boqrani sharkooda ku beegayiin dacwadu ma bariiqateen samahanta qofkii baraxa allow burjigiisa dhowr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا ونكسرنا بان بداود يالكو سو دhowaada barnaamijkeena caweyska culimada barnaamijka caweyska culimada waxa kulan kan martii nooga Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan ka hor intayna barnaamijka bilaabin marka hore aynu dul istaagno waa kuma Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan waxa uu 1969 ku dhashay magaalada Hargeysa waxana quraanka kariimka uu ka dhigtay aabihii oo ahaa macallin quraan Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan dugsigii hoose dhexe ilaa sare waxa uu Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil uu ku qaatay magaalada Hargeysa 1986 ayaa waxa uu ka qalin jabiyay kulliyadda caafimaadka xoolaha ee magaalada Muqdisho Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil culimadii wuxuu soo dhigtay waxa kamid ahaa aabihii Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan Sheekh Umar Sheekh Xasan oo adeerkii ahaa Sheekh Abiib oo sidoo kale adeerkii ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye Sheekh Ibraahim Cadde Sheekh Cabdilaahi Muuse Qaalib iyo culimo badan oo kale 1979 waxa uu Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil ka bilaabay darsigiisii ugu horeeyay tafsiirka Quraanka Kariimka masaajidka Cabdiraxmaan Gadhiire ee hadda loo yaqaan Masjid Nuur ee ku yaala suuqa Sharaaqle Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan waxa uu hadda tafsiirka Quraanka Kariimka ka akhriyaa masaajidka loo yaqaan Umar Cismaan ee ku yaala magaalada Hargeysa Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil waxa uu sidoo kale mas'uul ka yahay cilaaj ku yaala magaalada Hargeysa oo lagu daweeyo xanuunada ruuxiga ah intaas iyo in kale oo badan ayaynu ku qaadan doonaa kulankeena caweyska culimada oo uu martii noogu yahay Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan waa tahay daawadayaal intaas hadaynu kaga nimaadno taariikh nololeedka Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil marka ugu horeysaan barnaamijka soo dhaweeyay Sheekh Maxamed ku soo dhaweey barnaamijka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال ugu horeysa hadii aynu ku bilowno runtii waxaad ka soo jeedaa qoys aqooneed aabo adeero awoowo iyo qoyska qaybo kale oo kamid ah saameyn intee leeg bay kugu yeelatay ka Sheekh Maxamed ahaan bi'ada iyo deegaanka aqooneed ka soo jeedaa بسم الله إلهي سبحانه وتعالى قبريده ونور والدينتي وحد حسوسي هون حديث رسولك عليه الصلاة والسلام قفل يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال حديث سوحة الماما يا قفك اعتقادات كيسا قيب وينين كتها بيادو كنو ليه hadduu aabbahaa yahuudiha waxay u badan tahay inuu ku ta'fiiriyo hadduu aabbahaa sigaarka cabo waxay u badan tahay inaad sigaarka cabto hadduu aabbahaa salaad waxay u badan tahay inaad salaad tukato inkastoo hidaayadu min Allah tahay subxaanahu wa ta'ala oo daad arkayso nabi nin maxaan ku dhagaa gaala dhalay laakiin haddana aqlabiyada marka la eego ta'fiir badan bay ku leedahay bi'adu qofka bini aadmiga caqiidadiisa marka bifadlillahi wa awnihi waxaan ku soo barbaaray gacanta waalidka isagaana quraanka ay dhigay kutub badanna inta badan isaga ay aqriyay raxmatullaahi calayh iyo waalidiin kale oo iyana culimo oo adeeraday marka arinku saas oo ahaa kulay waalidku raad badan ku leeyahay ilmihiisa waayahay haddaad si gaara u xusto rabbi ha u naxariistee aabbo oo runtii kutub badan aad ka qaadatay bilowgii aqoon raadiskaagana runtii ku bilaabay waxbarashada haddii aad dhowr erey ka oran karto xasuustaada iyo sifooyinkii uu lahaayay aadka ku saameeyay aad kaga dayatay abahay raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa nin masaajidka ku xiran wuxuu ahaa 35 sanadood buu muadin ahaa
magaalada Hargeysa masaajidkan la yiraahdo Xer Haruudha waa masjid jaamici ugu horeeyay Hargeysa halka masjid jaamici ay ahaan jirtay magaalada Hargeysa 70-aadkii markii dambe ay masaajidka weyn u dhow dawladda hoose ayaa markii dambe loo guuray labada masaajid ba marka salaada jimcaha Hargeysa oo dhani masaajidkan hore Xer Haruudha markii hore magaalada oo dhani hal masaajid bay lagu tukan jiray jimcaha lagu oogi jiray waxaa khatiib ka ahaan jiray raxmatullaahi calayhi sheekh looran jiray sheekh Cabdiraxmaan Kaariye Hargeysa hadda ku aasan yahay khatiib buu ahaa imaamka masaajidkana uu ahaa aabana muadinkiisu ahaa markii dambe imaamnimadii masaajidka sheekh Cabdiraxmaan baa ku haray laakiin khudbada jimcaha waxaa loo wareejiyay masaajidkaas oo isna weynaa ka kaliya lagu tukan jiray ka laftiisana waxaa muadin ka ahaa adeerka sheekh Habiib oo ilaa hadda nool xafidahullah ayaa isna muadin ka ahaan jiray markaasaasay adigu usradu u ahayd usradu had iyo jeer masaajidada ugu xidhan bay ahayd marka alxamdulillah ku noqnoqoshadii masaajidada ee soo gadab qaadi jiray marba masaajid iyo marba culimadaas wax badan bay adigu nolosheedii akhlaaqeed ay maxaan ku raaa abaal ugu lahaayeen way sheekhana haddii aynu sii gallo xagga aqoonta markii aad laga yimaado aqoonta shareecada oo runtii qur-aanka iyo kutubta aabba ku soo bilaabay culimo kaloo badanna ay wax kuu dhigeen waxaad adigu baratay caafimaadka xoolaha aqoontaas xooluhuna runtii dee waa lafdhabarka dadka Soomaalidu runtii ay ku nool yihiin mid ay cunaan iyo mid ay dhoofiyaanba ahmiyad intee leeg buu ay xooluhu u leeyihiin baad oran lahayd bulshada sidee baana looga faa'iideysan karaa sida ugu habboon bismillaah xoolo raacata iyo xoolo dhaqataa dadku u kala qaybsamaan marka la eego dadka reer magaalka ahi waxay dulin ku yihiin dadka reer miyiga waxaan uga jeedaa dadka reer miyiga ahi dhib unbay ku qabaan xoolaha markay ugu badan yihiin oo markay neef ay waxoogaa yaro raashina iyo kabaha markay carruurtu ka dhammaata iyo ay uga soo iibsadaan laakiin wax daryeelahoo kale kuma qabaan mashkiladuna waxa weeye reer miyigeennu sida looga faa'iidaysto xoolaha ma yaqaaniin waxay isugu faanaan inta neef tiradooda ay haystaan waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu haysto 100 neef oo ariya 100 neef oo ariga ah inta ka irmaani inay yihiin wax yar inta dhalaysa inay yihiin wax yar ahminka ku jira inuu yahay ilaa 50 baa laga yaabaa ahminka ku jira xeradii uu ku cidhiidhayaa iyo hawadii daaqiina uu ku cidhiidhayaa marka waxaa fiicnaan lahayd maalinba inta manfacada lena intay deystaan ee dhalaysa wixii dhalmada daayay iyo ahminka aan dee dhalay intay leen xoolaha neef keliya loo reebtaa oo qoor ahaan loola hadhaa inta kale oo dhammu waxay ku yihiinuun inankii ilaalinaya culays bay ku yihiin bii'adii culays bay ku yihiin doogii way dhammaynayaan wax manfaco ka soo noqonaysaana ma jirto marka ugu badato waa marka la iibiyo ee qiimuhu maalintii hore goyn lahaa iyo maantana ay isku mid tahay marka waxaa u fiicnaan lahayd ninka reer miyiga ahi xoolihiisa wixii markaa dhalaya iyo wixii irmaan iyo wixii manfaco leh soo koraya inuu u deysto xerada si ay xeradu waasac ugu noqoto waxaa laga yaabaa doogaas maalan uu ku sii daayay ahminada in sanadka dhan hadday abaari dhacdo ay kayd u noqon lahayd waxaa laga yaabaa qofkaa reer miyigihi inuu ka aradan yahay inuu ka kabala yahay inuu cuntadiisi ay gabaabsi ku tahay mashkilad labaad baa iminka haysata reer miyiga oo mashkiladan qaadka la yidhaah ayaa iyana mashkilad ku noqotay oo ninkii reerka mas-uulka ka ahaa tuuladuu tegayaa tuuladaasuu ka amahanayaa qaadkii kaati maalinta dambe ayuu reerkii tegayaa neefka ugu qiimaha badan buu ka soo xadaya markaasuu iskaga bixinaya ama wuxuu odhanayaa carruurtan wax ugu soo iibinaya intuu wax yar carruurta usoo iibiyo baa inta kalena uu qaadkii iyo dayntii qaadka uu ku bixinaya waxaa dhici jirtay in dumarku ay subag yar ay xoolaha ka dhitaysan jireen subagii intuu ka soo qaato caagadii subaga ahayd ayuu keenayaa maxaanku dhaha tuuladii wuu xaraashayaa marka
wuxuu ku noqday reerkii intooda badan dadkii mas-uulka u ahaa waxay ku noqdeenuun sidii maxaanku idhahdaa shilintii micgabaaraydahay manfacadii caruurta waxaa qaybsaday qaadkii iyo maamul ximadii xoolaha marka inta badan soomaalidu sida loo intifaacsado xoolaha yaa lama yaqaanin talabaad maalan geel oo kale markaad caalam alcarabi tagto xataa neefka dhadig way rartaan isagoo rartay ayuu haddana maalayaa halkanna ninka soomaaligihii isagoo 100 halaad daba socda ayuu daba lugaynayaa oo aanu neef keliya inuu u foosho yani isagoo intuu u baxo uu ku daalbaxo aanu arkayn aanu yeelanayn laakiin carabtu waxaad arkaysaa inankii geela la joogay oo dhammaan inta qaalin geela ku jirto oo dhan intuu tababaro hadba kuu doono uu leedaysanaya iska fuulayo geela daba socdo ma badaalayo ilmihi halkan soomaalidu waxaa laga yaabaa inanka yaree dabadhoonka ah ayaa waxa laaliya waxa culays geeljirahaasi leeyahay ilaa kabahooda ilaa maryahooda ku rarayaan hal neef baa ugu filaa ay iskana daaqaya aan xuna saaraan hadday arkaan nin hal maalan raranayana inaabay dilaan baa waxba ku ahayn marka xooluhu inta badan reemiyigeenna xoolaha leh iyagu ma laha xoolahaas way ilaaliyaan way dhaqaaleeyaan laakiin ma intifaacsan yaqaaneen dhibcankaasaa waddanka ka jirta oo u baahan in la wacyi geliyo dadka xoola dhaqatada aad iyo waayahay dhanka kale sheekhana shaqada maalinlaha aad qabato waxaa ka mid ah runtii xanuunadan bulshada runtii muddooyin ku dhaca sida xanuunka jinka sixirka isha iyo waxyaabaha la midka inaad la tacaasho waxaana jira runtii dadka qaarkood oo muddooyinkan dambe ku dooda in jinku aanu geli karin aadamaha maadaamay kala abuur yihiin oo jinkuna abuur gaara yahay insigiina abuur gaara yahay mararka qaarkoodna qofku inuu dhaco oo qayliyo oo hadlo waxay yidhaahdaan uun wax xanuuno psychology-a marka dadka noocaas oo kale maxaa loogu jawaabi karaa adeero horta masaladan masalo uguba maahan waa masalo la kowsatay caalam alislaami oo weliba cuhuuddii hore iyo salaf saalix waqtigiisii arrinkaasi wuu jiray maxaanku idhaahdaa firqooyin badan oo xataa jinku inuu jiraba diidan haddana muslim sheeganaya ayaa jira sida muctasilada oo kale jinku waa makhluuqaad inala nool caalamkana una inagula nool yahay intaana waa la isku dhacaya wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruuna wakaana rabuka basiira ilaahay subxaana watacaala markuu aadam iyo xaawo jannada ka soo dejinayana ihbiduu bacdukum libacdin cadow ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwa waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan kulley cadowgaagu hadduu jaanis gu helo siduu doonaba ha ku weeraree inaanu fursadda luminayn ibliisku waxaad xasuusataa nebiyullaahi ayuub calayhi الsalaatu wasalaam markuu ilaahay u cabanayey wuxuu ilaahay ku yihi rabbi inii masaniya shayطaanu binusbin wacadaab ilaahayow shayطaanku wuxuu itaabsiiyey binusbin wacadaab xadiid saxiixa oo nabigeena laga warinaya waa ta ah anigoo salaatuleyl tukanaya ayuu shayطaanku isku dayey inuu dhimbiil daba wejigayga markaan sujuudayo uu ii dhigo shayطaankii waan qabtay cunahaan qabtay dhareerkii afkiisa ka soo dacday carabkiisa qoyaankiisa gacantaan ka dareemayay waxaan damcay inaan xidho oon tiirarka masaajidada aan ku xidho si hadhow caruurta ay ugu ciyaarto waxaan xasuustay markaa ducadii walaalkii nebiyullaahi sulaymaan xadiid saxiix oo muslimka ku yaala waxa uu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu caajiso haamhaamsanayo ha isku xajiyo haamhaamsiga ama gacanta ha saaro sababtoo ah ashayطaanu yadkhulu fii famih waa xadiid saxiixa bukhaariga muslimka ayaa warinaya ilaahay qur-aankiisa kariimka wuxuu ku yidhi marka uu ka hadlayay riba cunaha markuu ka hadlayay maalinta qiyaamaha wuxuu soo xaadirayaa kaannamaa inuu masan min ashayطaan sida yatakhabadhu الshayطaanu min almas waxaad ku suurayn lahayd sidii qof
intuu jingalay dhacdhacaya. takhabud waa qofka oo gebi dhaclayn oo kolba si u dhacayo markuu kaco haddana kufayo markuu kaco haddana kufayo. marka taasi waxay noo tilmaamaysaa inuu xataa qofka bini aadmiga ta'hiirin karo qaabka socodkiisa oo marna uu ridi karo marna uu istaagayo. marka masaladan jinku wax ma galo oo isku suurad ma aha ama isku abuur ma ahan. waxa uga dhow inay yidhaahdaan bini aadmi ma galo waa sax iyagaa isku suurada ismana dhexgeli karaan. laakiin laba aan isku suurad ahayn oo isdhexgeli karaan bakteeriyada iyo inagu isku suurad ma nihin haddana jirkeenna way ku jirtaa. fayraska iyo inagu isku suurad ma nihin haddana jirkeenna wuu galaa fayrasku. fangaska sidoo kale. marka horta inay isgeli karaan axaadiistaa saxiixayna way sheegtay. nabigeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ashaytaanu yajri min ibni aadama majra dam. shaydaanku wuxuu dhex mari karaa ina nebi aadam halka ay dhiigu maro xididada dhiigu dhex qaaday sida bakteeriyaduba xididada dhiigga ay u dhex qaadayso ayuu isna u dhex qaadi karaa. taa waxaan kuugu daray sida uu rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam ashaytaan yatashakal qaabo badan suurado badan ayuu isu ekaysiin karaa. mar buu bini aadmi isu soo ekaysiin karaa. xadiidka saxiixa ah ee bukhaari muslim baa warinayana ahaa maalkii zakada ee abaa hurayra ee uu ilaalinayay habeenkii waa kii intuu bini aadmi isu soo dhigay alaabta urursanayay ee abaa hurayra uu qabtay. dagaalkii badar oo kale waad xasuusataa waa kii isu soo ekaysiiyey suraaqa binu malik. waad garanaysaa daara nadwa markii nebiga loogu shiray calayhi salaatu wasalaam inuu isku soo yani shabahay shaykhun min najd oo bini aadmi isu soo ekaysiiyey. wuxuu kaloo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sheegay inuu bisada madow iyo ayga madow uu mararka qaarkood isku soo tashkiilin karo iyo waxay ka bedelanba wuu isu ekaysiin karaa. marka wax qariiba ah ma ahan inuu ibliisku uu jirkeenna galo dabeedna wax dhibaato ah oo inoo geysto. haddii uu u baahan yahay qofkaasi inuu xaqiiqo arko dee cadceeddoo soo jeeda gacan laguma qarin karo hanoo yimaado annagaa tusi doona isagoo qofkii caadi oo socdo marka qur-aanka lagu aqriyo qof waxaad arkaysaa weligiiba meel qur-aan lagu aqriyayo meel jinla wax lagaga saarayo qof aan weligiiba arag oo qof kaloo xanuunsanaya wada baa culimada u keenaya. marka qur-aanka qofkii uu waday lagu aqriyo waxaa laga yaabaa qofkii uu waday inaanu isbedelin kii meesha yani wax waday ee caafimaadka qabayna inuu dhaco dabadeedna ay wax ka hadlaan carabkiisana adeegsadaan. marka masaladani waa masalo xaqiiqo ah culimada islaamka ee xaqaaniyiintana way ka hadlaan waana masalo weligeedba soo jiri jirtay. marka masalo maanta dee murankeeda horaa looga soo daalayo way soo dhammaatay. marka duulkan iminka aad sheegaysaa waa duul cusuboo dee caalamka iminka waxay soo nooleynaya dagaal waa hore lagaga adkaaday. waxaanay laba fikradoodba kuwani way xambaarsan yihiin isaan ka dhadhamiyey doodooda. dhinac waxay ka yihiin niman shiica ah oo waxay aad iyo aad u aflagaadeeyeen sayidina caaisha radiallahu taala canha haddaad dhegaysatay. dhinac waxay ka yani aflagaadeeyeen axmed binu xambal raxmat ullahi caleyh aad iyo aad bay ugu kacsan yihiin. waxay aad iyo aad maxaan ku rahdaa ugu kacsan yihiin aba hurayra radia allahu tacaala canhu oo ay mar beenaalo ku sheegayaan mar ay tuug hantida qaranka cune ay ku sheegayaan iyadoo oo abaa hurayra radia allahu tacaala canhu rasuulka oo nool uu hantida muslimiinta ku aaminay. hantida muslimiinta ayaa nebigaa u dhiibo yidhi ilaali. saxaabigii hiqadaa lahaa ee rasuulillaahi muxamed khayru khalqillaahi uu u dhiibay hantida islaamka baa waxay leeyihiin tuug buu ahaa sayid cumar baa casilay oo wuxuu ku casilay hanti yani islaam ayuu lunsaday iyo sheekooyin noocaas. intaa waxaa igala sii qara weyn afkaarta ay aaminsan yihin ba waxaa ka mid ah inay leeyihiin rasuulillahi maxamed calayhi salaatu wasalaam qabla risaala kaafir buu ahaa. afkaartooda ka mid tahay markaa tiraa muxuu kaafir ku ahaa maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan baa ilaahay qur-aankiisa ku yidhi markaa inaanu iimaan lahayn bay taasi caddaynaysaa bay leeyihin. markaa nebiyullaahi moxamed kaafir buu ahaa bay leeyihin qabla alislaam intaan waxyiguu soo degin. xaqiiqaduna way diideysaa oo nebiyullahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo 4 jira ayaa intuu ilaahay malakul jibriil u soo diray iyo mikaa'iil intoo la qalayba
wasladii ibliisku ku lahaaba quluubta uu yani kula xidhiidhayay ilaahay uu ka saaray oo ka nadiifiyey cadabahu rabbuhu fa axsana ta'diiba markii intaanu waxyigu u soo degina wuxuu tegi jiray godkii la odhan jiray gaara xira kaana yataxanath fiih marka taxanadka ay culimadu macneeyeen kaana yatacabad ilaahay buu halkaa ku caabudi jiray taariikhdu waxay qiraysaa nebi maxamed weligii inaanu sanam u sujuudin weligii inaanu khamri cabin weligii inaanu been sheegin maxamed alamiin baa la odhan jiray intaanu saadiq amiin marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahayna uga markhaati kacay yani inuu ilaaliyey ambiyadana ilaahay uu ilaaliyo min siqar ilaa kibar hal mar buu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii xaramka la dhisayey mar labaadkii ee dhagxaanta la gurayey ee adeeradii la gurayey ayaa go' keliyuu xidhnaa wuxuu damcay markaa go'aas inuu isooga dhigo dhagaxii jaahiliyadduna ceeb uma arki jirin qofka cawradiisa halku markuu go' iska furis yidhi markiiba wuu sooxay koomuu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaalin ilaahay xaggiisa hal maalin ayuu aroos ka qayb galay uu yidhi inankii adhigii la ilaalinayay bal caawa aan arooskii wax lagu hayo markuu soo fadhiistay hurdadii qabatay nebiga calayhi salaatu wasalaam cadceeddaa kicisay weligiina 2 jeer buu aroos tegey 2 jeerba hurdadaas ayaa qabatay wixii laga sheekaysanayay wixii waan ku sii siyaadiyey markaa nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanku ku soo dejiyey wuxuu kaga warramay isagoo iimaanka ka cabiraya salaada in allaha laa yudiicu iimaanakum markii kacbada laga wareejiyey baytulmuqadas ee maka loo soo wareejiyey ayaa waxaa la yidhi dadkii baytulmuqadas u tukan jiray salaadoodii maxaa laga yeelayaa ilaahay markaa wuxuu ka cabiray salaadii iimaan xaqiiqatan nebi maxamed dee markii waxyigu intaanuu soo degin salaada muu oqoon ilaahayna wuxuu ka cabiray salaadii iimaan marka tan ay leeyihiin islaamnimadii guud iyo kaafir buu ahaa waxaa uga tooroonayd salaada muu oqoon salaaduna dee waktigaa la-aanteed haddaan lagugu waajibin laguma kufriyaynin marka dadkan imika aada rabto inaynu qancino dad qanac u baahan yani raba maaha waa dad raba in ay fitan beri hore seexday inay dib u soo nooleeyaan dagaalkaasina wuu dhammaaday oo nimankii muctasilada ahaa ayaa ku jabay khalqal qur'aanka iyo maxaanku idhaha meelaha weliba nimankaasi inta badan waxay dabada geliyaan xukuumadaha baatilka ah kuwaas had iyo jeer ay awrkooda ku kiciyaan laakiin xaqiiqatan jinka ama shaydaanka waxaa doontaba dhaho insaanka wuu dhibaa wuu galaa wuu waswaasiyaa dhibaatooyin jasadiyaba u geystaa mid caqadiyana u geystaa way sheekhana marka dadka qaarkood baa jira oo marka qaarkood caafimaad ahaan u xanuunsanaya laakiin ehelkooda iyo qoyskoodu ay moodaan in waxa weeyaan xanuunadani ay hayaan ama jinka ama sixirka ama waxa la midka dadkaasoo kale marka la idin keeno sidee baa ula dhaqantaan xamsa waa mahadsantahay adeere horta anigu markii hore takhasuskayguma ahayn cilmigan maxaan ku dhaha sida loola macaamulo makhluuqaadkan kale ee nala nool anu dhakhtar baan ahaa veterinariana mashkiladan waxaan u arkay inay waajib igu tahay inaan hawshan aan gacan geliyo aniga oo ceerigaabo jooga 1994 oo hay-ad la yidhaahdo action aid dhakhtar u ah xoolaha 1994kaas horaantiisii ayaan horta sixirka iyo jinka iyo isha iyo waxaa baxsi ka sameeyey cajalado ilaa 10 oo meelo badan caalamka ka gaadhay ayaan muxaadaraad ka duubay masaajidka weyne mise jaamaca hargeysa ayaan ku duubay cajaladahaasoo markaa sumcaddooda iigu horreysay baan anigu dhakhtar ahaan ceerigaabo aan u tegay waktigii hargeysa dagaalku uu ka dhacay deedna maalin maalmaha ka mida ayaa anigoo shaqadaydii ku jira ayaa wiil dhalinyaro ah oo ilaa 20 jir meelahaas ayaa la igu yeedhay waxay igu yidhaahdeen wiilkan jin baa ku jira nala eeg wiilkii waan eegay waxaan arkay wiilkan calaamadaha ka muuqdaa inuu yahay xanuunkan ay jooniska yidhaahdaan hepatitis-ka oo weliba nooca weliba cagaarshaha indhaha yalowga ka dhiga waxaan ku idhi ninkan xanuunkiisu waa xagga beerkay u dhowdahay calaamadihii beerkuna way ka muuqdaan marka bal intaan haddii aan la yidhaahdo shaybaadha ka qaadayno
ninkaas wax dufana yaan la siinin. waxay igu yidhaahdeen goor dhoweyd baa islaani naga tagtay kuwan fooxiyey iyo jimanka iyo waxaas, marka waxay tidhi saar iyo maxaanku idhahdaa waxbaa haya, neef bay qashay wan, baridii bay shiishay, baridii buu cabay goor dhoweyd. marka waxaan ku yidhi de ilaahayna wuu leeyahay geeridana waa u simannahay, laakiin halis badan buu ku jiraa, bal de haddii waagu baryo aynu xaaladiisa eegno. markaan albaabka saa uga baxay, markiiba yarkii uma tagay dhiig, xinjiruu soo daayey, markiiba way ka bootay. taasi mid bay ahayd. anigoo haddana iska shaqaysanaya ayaa maalin kale la ii yeedhay. nin baa la igu yeedhay xanuunsanayo aada u rafaadsan oo diifi ka muuqato. niman baa loogu yeedhay jimgaan saaraa yidhi karbaash baasay ugu wadeen jidhka oo dhan ee jilciyaanooda nabarrada ku yaalla aad yaabto. ninkii xaaladiisii baan eegay, qur-aan baan ku aqriyay, calaamadihii jinka waan ka waayey. dabeedna waxaan ku yidhi ninkan horta dhiig la-aan badanina way ka muuqatay, xumad khayr caadiyana u lahaa. marka waxaan ku yidhi ninkan ha laga baadho kaneeco. kaneecadii baa laga helay oo halkee maraysa. kaneecadu markay dee cusub tahay waxay burburisaa unugyada cascas ee dhiigga. ninkii waxaa ku dhacay anemic buu noqday, xumadiina waa u raacday. xumadii iyo dhiig la-aantii baa markaa qofku hadlay sidii qof waalan oo kale. hadarkii bay u qaateen inuu jinka hadlaya. hadal oo maxay markaasay ciqaabeen. adigu qofkii sabab buu ilaahay iga dhigay inaan ka gaadho. dawadii kaneecadaan u bilownay, markiiba uu bogsaday. kaasina xaalad labaad bay ahayd. xaalad saddexaad baa haddana cergaabda lafteedii iga qabsatay. qof TB ku dhacday ayaa waxay ugu yeedhaan kuwan maxaan ku dhahdaa jimanka wax ka saara ay sheegaan ninkii qiiq. ninkii waa nin sanbabadiiba ay buuxeen, markaas haddana qiiq lagu shiday. ninkii oo sakaraada ayaan u tegey. markaa ninkan bahashuna isma qariso, TB-du calaamaday leedahay, symptoms bay leedahay. qofka oo wejigiisu iyo maxaanku jirkiisu birbirqo, timihiisa oo maxaan ku dhahdaa bilaa nafaqaho, maxaan ku dhahdaa suuqsuuqma, dhidid yaroo qarmuun oo maxaan ku dhahdaa urgaara leh, qufac saqda dhexe habeenkii. calaamadihii baan adigu aan weydiiyey. dabeedna isbitaalkii TB-da candhuuf baa laga qaaday, markiiba waa positive. kiina alxamdulilah sidii buu ku bogsaday. marka goortaan arkay de qaladaadka lagu sameynayo diinta iyo gafka laga gelayo ummadda, oo qof aan aqoon u lahayn oo dadkii rafaadinayo, naftiina halis u gelinayo, qaarkoodna wada ay u dhinteen unu joogay, waxaan go-aansaday inaan shaqada veterinariga aan faraha ka qaado. dabadeedna aan u xarka xidho mawduucan inaan daraasad ka sameeyo. markaa buxuud fara badan baan raadsaday, kutub badan baan raadsaday. yeman baan u safray. waqtigaa intaan shaqadii joojiyey baan yeman aaday. yeman baan kutub fara badan aan ka soo helay oo u badan weliba kutubtan acshaabta heerbalka aada ugu yacni. marka shaqadaydii labaan iska dhigay, anigoo markaa dhakhtar veterinarian ahaa oo botaniga wax ka aqaanay. waxaan uga faa'iidaystay inaan dhirtii iyo manaaficdeeda aan wax ka barto oo aan akhristo. markaa dhirtii geedkan muxuu manfaco leeyahay, qiyaas intee leeg baa qofka laga siinayaa, side effects muxuu leeyahay, qofkee baan la siinayn, qofkee baan la siinayaa. waqti badan bay iga qaadatay daraasaddaasi. taydii markaa hore aqoontii maadiga ahayd ee dhakhtarnimo iyo waxaan isku kabay aqoontii kutubta aan ka helay dhirta iyo baxdigan dambeen sameeyey. culimadii hore maxay ka yidhaahdeen xanuunadan ruuxiga ah ee qofka bini aadmiga ah, ama sixir ha ahaado, ama il ha noqoto, ama jinda aada isjiidheen, ama mashaakil aada isku dhacdeen, ama inta faraha badan wuxuu odhanayaa markuu jinku kula hadlo, anigoo meel caruurtayda ku haystaa biyo laygu daadiyey bayla, ama dhagax lasoo tuuray baa igu dhacay, ama qofkii oo meel sare intuu kasoo boodo iyagoo maxaan ku dhaha hosiiskan iskoos fadhiya ay ku dul dhacaan. siyaabo caynka, ama geed ay maalan ay hoos fadhiyeen oo qofkii intuu gooyo geedkii ay yani wax kaga dhintaan. xaalada noocaas oo kale ah markay xanaaqaan ee madaro loo geysto, qofkii wax u geystay iyana way ka aarsadaan.
arrimo noocaasoo kale waa kula kulmaya. waayahay sheekhana marka waxaa jira dhanka kale dad badan oo aan aqoon diimeed oo badan lahayn, marka qaarkoodna aqoonta cilmiga dhirta iyo waxyaabaha noocaas aan lahayn, oo marka qaarkood yidhaahdaa howlahan aan daweynayna oo cilaajiya furta. dadka qaarkood waxba la sheegaa inay u qoraan dawooyinkan hurdada oo muddo badan deetana qofkii markay siiyaan laga yaabo inay xanuuno noocaas oo kale ma uu la qabsado. sidee wax looga qaban karaa, yaa si awood u leh inay wax ka qabtaan? horta tani waa mas-uuliyad caafimaad, wasaarad dhanbaana u dhisan. wasaaraddaasi waxay ahayd inay la xisaabtanto maxaad haysataa, wax maxaan ku dhaha digriya. arrimaha caafimaadkuna dee qofka bini aadmiga dawada ku tijaabi. markaan xoolaha baranaynay baa dawooyinka waxaan ku tijaabin jiray maxaan ku dhaha jiirka iyo ayda iyo bisadaha iyo baa lagu tijaabin jiray bal dawadani intay faa'iido leedahay. mararka qaarkood baa cudurrada waxaa lagu duri jiray jiirka iyo bisadaha si aan hadhow xoolaha aada mudaysa caadigana manfacada leh aanay dhibaato u gaadhin baa marka hore xayawaanka aan faa'iidada lahayn lagu sii eegi jiray. waxaana culimadii hore odhan jirtay man tatababa walaysa bitabiibin facalayhi damaan. ninka dhakhtar iska dhiga dhakhtarna aan ahayn waxyeelada ka timaada shaqadiisaas isagaa lagu leeyahay. marka qofkii hadduu is yidhaahdoon maanta shilin halkeed ka raadisaa hadhowna waxyeelo ku geysto isagaa yacni lagu leeyahay. laakiin arrintaas waxay ahayd wasaaradda arrimaha diinta iyo wasaaradda caafimaadku intay iskaashadaan inay dadkan weydiiyaan maxaad aqoon haysataa, maxaa halkeed wax ka soo baratay, in la weydiiyo oo qofkii markaa munaasib u ah hawshaasna hawshii dee loo ogolaado, qofkaan munaasib u ahayna hawshii dee ummadda inaan u halaagin laga qabto. way jazaak allah khayr sheekhana. dhanka kale marka laga yimaado shaqada waxaa tahay mid ka mid a culimada runtii duruusta dhiga, gaar ahaan tafsiirka, oo adigu aad masaajidkan runtii aynu barnaamijka ku duubayno aad ka dhigto. maalmo ka horna aad dhammaystirtay oo runtii xafladiisii ay ahayd. waxyaabaha aad runtii hore iigu sheegtay waxaa ka mid ahaa kutubtaad aad ka u akhriday inay ka mid ahaayeen kutubtii sayid qutub calayhi raxmatullah, ilaahi subxana watacaala ha u naxariisto. dhanka tafsiirka markaynu ka eegno markaa wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo fii dilaal alqur'aan oo culimada qaarkood markaa kitaabka ay ka hadlaan sida uu u qoran yahay ama luqadda uu ku qoran yahay adabigana mararka qaarkood muran badan u dhaliyo. kitaabka adigu maxaad ka odhan lahayd? horta sayid qutub raxmatullaahi calayhi nin muslima buu ahaa, halgan badanna diinta islaamka u soo galay. sayid qutb shirkigu laba waaxood buu u qaybsamaa, shirka alqubuur iyo shirka alqusuur, oo unaga jeedo shirki laga maamulo qasriyada iyo shirki laga maamulo qubuurta. shirkiga qubuurta waxaa aada ula dagaalamay wahaabiyada, maxamed bin cabdiwahaab iyo raggiisii, in qubuurta aan wixii ilaahay lahaa aan loo iilin noocay doonta ba ahaatee, ama nadar ha loo galo, ama xoole ha loo gowraco, ama caruur ha laga dalbado. oo dee anigu waxaan soo gaadhay Hargeysa iyadoo sheekh yuusuf abubarkhadle raxmatullahi caleyh loo dhigo sanadkii walba mar maxaan ku dhaha xus dhagax baa markaa meesha yaalla. dhagaxaas ayaa dumarka dhali waayey lagu fadhiisin jiray. waxaa la iga sheekeeyey anu markaa ma soo gaadhine muriidkii markaa waktigaa joogay lacag buu ka qaadi jiray dumarka markay dhagaxa ku fadhiisanayaan. islaan dhali weyday oo aan lacagna haysanin ayaa kuyubaa loogu jiraa. waxaanu rabaa dee dad badan inay ku fadhiistaan, kharash badan bixinaya. islaantu markaa adduun haysataa rubad, waa lacagtii markaa la isticmaali jiray hindiga, rubad bay haysataa. markaa waxay tidhi hooyo rubiyadana haystaa, carruurna ma haystee aan dhagaxan ku fadhiisto inaan ilmo dhalaan rabaa. lacagtii uu ka qaaday. dhagaxii markii uu ku fadhiisanaysayba wuxuu ku yidhi ma kula tahay rubiyad baad wiil cad ku dhali doonta. marka halkaasaa carruurta loo doonan jiray, halkaasaa arsaaqda loo doonan jiray, halkaasaa baadida lunta looga nadri jiray. marka shirki badan ba halkaa ka dhici jiray. dagaalkaa markaa culimadii gashay muqaawamo adag oo dee dawliya may ka hor imanin. intii badnaydna waa laga adkaaday wadamo badan oo caalam alislaami ka mid a.
qubuurtii waxaa dadkii ku shaqaysan jiray saaxadii way ka baxeen waxaa jiray markaa shirki laga soo abaabulo xagga qusuurta oo xagga xukumka ah xukumku qofka bini aadmiga hadduu xukumka ilaahay ka leexdo waa nooc shirki ka mid ah walaa yushriku fii xukmihi axadan am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illah markaa sayid qutb raxmat ullahi caleyh anigu fikirkan ka aaminsanay waxa weeye inuu daah furay ama uu caddeeyey alcawdatu bigayri kitaab ilaa kitaab yani waxaan kitaabka ahayn loo noqdo oo laga xukum qaataa waa xukm aljaahili ah afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun markuu aayadahaas macnaynayo aad iyo aad baad ula yaabaysaa marka wuxuu kala saaray awoodda xaakimka iyo awoodda ilaahay ninka madaxweynaha ah intee in la eg buu isagu awooddiisu la eg tahay waxa weeye wuxuu caddeeyey xaakimku inuu ilaahay uga dambaynayo talada wax allaaliyo wixii la isku qabsadana in ilaahay loola noqonayo markaa taasi waxay yeelatay cudud shirka alqusuurkii waxay noqotay dabaabaad bay haystaan military bay haystaan diyaaraday haystaan maaliyad bay haystaan saarki mayse dabeedna waxay isku dayeen inay dagaalkaa muqaawameeyaan waxay isticmaaleen inay kutub qoraan waxay isticmaaleen inay dad adeegsadaan oo ay fikrad qaldan ka faafiyaan kaana insaan uu khata'i karaa laakiin inta uu hagaajiyey baa ka badan hadduu khata galay kullu insaan khata wa khayru khataa'ina atawaabuun markii dambe yani loo bedelay maxaan ku dhahdaa dadaalka diiniga marka qofka bini aadmigihii hadduu dadaalo inaad ka eegto un aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanahu intuu hagaajiyey baa ka badan haddii uu xumeeyey waxaanu haddee rajul adiib ah oo ninkaan luqadiisa garanayn wax badan ayuu la yaabayaa qofka bini aadmigina inuu duqsiga waxaa la yidhaha meesha nabarku ku yaalla unbuu raadsadaa waxaa ficnaan lahayd markaad baaxisteed wax baranayso inaad meelaha manka iyo ubaxyada sida shinnida inaad meelaha udgoonka ah aada ka dhabaqsato laakiin meelaha nabarada ah sida duqsiga inaad eegato maaha ninkaas maanta uu inaga hooseeya xataa kufaarta dhimatay baa nebigeenu yidhi yani amwaadda waxba yaan laga sheegin fikir waa la caaridi karaa laakiin sayid qutb raxmat ullahi calayhi wuxuu ahaa rajul dadaalay sababta diintana u dhintaan aaminsanahay jazaaka allah khayr marka kitaabkiisi fi dalaal alqur'aan iyo tafsiirkana waa wax badan baan ka aqrinay jazaaka allah khayr dhanka kale waxaad ka mid tahay midharka kooban ee culimada soomaalida ka mid ah runtii adeegsada suugaanta soomaaliga marka ay wacdi jeedinayaan marka ay cashar dhigayaan tafsiirka marka qaarkood suugaanta kuba luqeeyo oo waxa weeye luuqdii ay lahaayeen oo kale matalan sida markaa muuqaalada qaarkood baraha bulshada lagu baahiyey aan ku aragnay suugaanta xidhiidh nooceeya idinka dhexeeya se intee in leeg baad u adeegsataa in dadka aada la hadlaysa aad wax ku fahamsiiso bismillah horta dee ummadda waxaa laysku fahmaa waa hadalka xoolahana urtaa laysku gartaa bini aadmiguna hadalka waxaad arkaysaa nin hadlaya oo 50% hadalkiisu ingiriis yahay ama 50% hadalkiisu carabi yahay cidda uu la hadlayaana ay Soomaali tahay waxaa la yaab leh markaad imika Hargeysa oo kala marto boorarka ay meheradaha ay ku xayeysiiyaan dhammaantood waa ingiriis cidda ay wax ka iibinayaan la mucaamaloonayana waa Soomaali Soomaaliduna ingiriisiga yaala ma bataqaan wuxuuna rabaa dadkan inuu wax u sheego ila waxaan ka iibinaya ma waxaan ku haya markuu qofkii boorka arkana muhiimadii uu rabay uu doonayay kama aqri karo boorka marka waxay yani qofku inuu luqadiisa ka hanweynaado oo yani u arko inay aqoontu tahay luqad kale nin baa hees jiro wuxuu yiri afqalaad aqoontu miyaa maya maahe waa intuu qofba eeba gashaa ayay nala tahay annaga ma og tahay dib looma abuuro dadka marka luqadanu qofka haysta ceebku maaha midabkuna ceeb maaha timahaagu ceeb maaha waa wax abuur ah haddaad timahaaga ka sasto timo kala heli maysid haddaad luqadaada ka hanweynaatana luqada kala heli maysid marka waxaan isku dayay markii aan tafsiirka bilaabaya ama kutubta aqriyayay
in aan u helo kelmad kastoo af carabiga oo qur-aanka ku taala inaan erey af soomaaliya oo ku munaasab ah inaan raadiyo waxaana ii soo baxday inay luqada carabigu ay la da' tahay haddaanay kaba daaweyneyn luqada afka carabiga sababtoo ah erey kasta oo af carabiga waxaan u helay af soomaaliya ama ku dhadhow oo aan soomaaligii aan wax u sheegayeyna aan ku fahamsiin karo waxay isku dayaan culimada tafaasiirtu مثلا شوكاني وكله مركود كتب تفسير فتح القدير كله مركاد يكتب ابن كثير كتاب كستو تفسير مركو دون يقف كأن واحد فامسيه أما بيد عربي وساق أنا ما لا بيد عربية أي ساق هذا أنا وحن سكود ده مركا أنا جو إن أنا باللغة الصومالية أنا جه له استدلال كي عربية وحودك ما هو الصومالية oo qofkiina igu soo heemi karo markuu maqlayo soo joogsan karo sababtoo ah luqadii uu yaqaanay baan kula hadlayaa marka waxaan ogaaday in kitaabka quraanka ah marka asmaada laga reebo inta kale oo dhan luqadu ku hadlayo 99% erey af Soomaaliya oo sax ah in loo helo way jazakallahu khair hadaba hadii codsi ahaan bahda barnaamijka iyo dadka ku daawanaya baan ka codsanaa bal dadka aad suugaantooda xiisayso hadii aad nala wadaagto mid kamid ah suugaantiisa waliba adigoo ku luqeynaya ama sayidkii ama xaaji aadan ama tima cadde inta xasuustaada aad baad horta u mahadsan tahay horta anigu shakhsiyan waxaan ugu jeclahay cid af kala qaado gabayda raxmatullaahi calayhi xaaji aadan waxaa igu xiga ninka lagu yidhaahdo cabdilaahi suldaan tima cadde labadan horta waxaan u dhigo ma hayo sayidku dee nin siyaasiya buu ahaa istaragal iyo dagaal buu ku jiray dadna way ishayeen dagaalna wuu ku jiray marka inta faraha badan gabayadiisu cidna way ka farxiyaan cidna way ka cadhaysiiyaan saad garan maysid cusuurtan dambe ragga aan gabayadooda ugu jeclahay waxaa ka mid a ninkii qaasim raxmatullahi caleyh nin aad iyo aad u halbuuran buu ahaa nin aragtidiisuna ay meel fog arkaysay buu ahaa ragga nool ilaahay ha caafiye ninka lagu yidhaha hadraawi laftiisu nin hadallo waaweyn oo gabayadiisu ay macanku ay meel aadayaan ama gabaygu tirinaya ujeedo مثلا markuu Falastiin ka gabiyo kale Falastiin markuu ka gabiyo hawda gabayga ugu hiilinayo Falastiin ma geed baa uu leeyahay marka uu hiilinayo inantii ereyda gurigiisa ku soo barbaartay walla yaabaysa hadda markuu hooyada ka hadlayo gabayga hooyada oo kale iyo heesta hooyada oo kale ninkaasina nin midhihiisu midha ujeeda leh sidiisana gabaygu haddaan ujeeda lahayn uu dhadhan beelaa waxay yidhaahdaan qaacidaysa u sameeyaanoo haddaan gabayga uurkoo bukiya arami kaa keenin ammaan umal jacayl iyo kalgacal kugu igraahaynin afkuunbaad ka leedee tixuhu arar ma yeeshaan haddaanu gabaygaagu meel ku aadanayn qaadaa dhig ma yeesho erey laga yani hadhow taariikhda galana ma yeesho marka hadda dee waxaad i weydiisay gabay inaan ku luuqahiyo mana jeclay inaan kala gudubsado abwaanada insha allah tacaala mar kalean insha allahu taala adiga dhig insha allah kale muuqaalaa jira runtii tafsiirka waqtiga aad ku jirto adigoo kii matalan qabyaalada oo kale ku luqeynaya iyo qaar lamida qolyaha imika waqtigan joogana marka qaar bay suugaantu imika mijin la qiimo tahay oo reediyoyada iyo idaacadaha iyo tiifiyada iyo inuu qofku intuu qof yar amaano xoogaa yar ku helo runtii marka sidaa ujeeda la-aantaasi runtii aad bay u badan tahay su-aasha ugu dambeysa sheekh maxamed sheekh ismaaciil waxaad aada u xiisaysaa inaad akhrido taariikhda ama sooyaalka kii hore iyo ka waqtigan imika bulshadu ay nooshahay casharada ugu muhiimsan ee sooyaalka ama akhriska taariikhda laga qaadan karo maxaad ku sheegi kartaa horta haddaad eegto gabaygan xaaji aadan raxmatullaahi caleyh uu ceerigaabo ka tirinayo bilowgiisa wuxuu odhanayaa taariikhdu waynoo musbaax maanka caawi maaye adoo malaagudayaad yaqiin marar ku gaadhaaye dalkeenna waa xumuudan ceerigaab uguna maagdheer marka wuxuu yidhi taariikhdu waynoo musbaax
musbaaxu waa af carabi waa inoo layd taariikhdu waa inoo musbaax maanka caawima adoo mala gudayaad yiqiin marar ku gaadhaa haddii aad historyga iyo taariikhda aad daraasayso arrin daaweynteedu ay sanada kugu qaadan lahayd ayaad ka dhex aqriyaysaayoo laga yani dad hore yani ku dhacday siday u xalliyeenna ay ku caddahay taariikhda marka adiga kugu qaadan mayso intay isaga ku qaadatay sababtoo ah intuu wakti ku bixiyey adiga wuu ku harhayaa wuu ku marxayaa marka waxay ku fiican tahay nolosha oo dhanid waa dhacdooyin wax ugubihi way yar yihiin ba waxa dhacaya caalamka wax ugubihi way yar yihiin waxa dhacaya marka waxay ku fiican tahay qofku waxay yidhahdaan Soomaalidu dadku waa kubkiciroole iyo ooga kuciroole iyo uur kuciroole saddexdaas dadka u qaybiyaan waa nin safar badan oo caalamka soo maray kubkiisa iyo lugtiisa caalam badan ku soo maray way aragnimo badan afalam yasiru fil ard cilmi badan ba ku jira markuu ilaahay leeyahay dhulka soo mara ooga kuciroolana waa nin cimri dheer u soo joogay waxaan u soo joogay bisoo ku oranaya wax ma aqriyo laakiin intii dhegtiisu gaadhay indhihiisu markaa uu joogay buu kaaga waramaya nina waa uur kuciroolo waa ninka ugu da'da weyn caalamka waxaa laga yaabaa dhacdooyin 2000 oo sanadood ka hor dhacay ayuu isagu hayaayo xaashi yar isagoo ku qoran waqti yar oo saacad ama 2 saacadood baa laga yaabaa 4 yani 1000 sanadood wixii dhacay inuu buugaa kaga helo ama qoraalka marka waxa ugu muhiimsan ruuxu inuu ayaara ku noqdo akhriska qofka marka waxa u fiican gaaladuna way taqaanaa ubadkooda way ku barbaariyaan waxay yiraahdeen more you read more you get hadba qadarkaada wax akhrido Soomaalidu waxay oranaysaa candha geel nin walba intuu gashado ayuu ka maalaa marka xagga aqoonta waanu isticmaali karnaa mahmaahdaasoo hadba intaad adigu aqrido ayuunba aqoontaada iyo maskaxdaada ay leekaanaysaa cilmiga iyo caqliguna way iskaabaan qofku hadduu caqli badan leeyahay aqoonna uu ku daro cidi ma gaadhaysa marka waxaan odhan lahaa taariikhdu qof kasta ama sheekh ha ahaado ama macallin biology ha noqdo dhiga ha noqdo ama physics ha dhigo ama culumta kale maadiga ha dhiga qof ka maarmaya inuu taariikhda wax ka yaqaano inta badanna markaad rag isqabataan waxyaalaha lagaga yani adkaada ragga waxa weeyaan markaad taariikhda soo qaadato odayo arrin kale aad ka hadlayso hore u dhacday saa iyo saas ay ahayd marka qofkii dib uu kaaga fadhiisanaya marka taariikhda waa muhiim in la barto oo la akhristo waliba inta badan waxaa loo adeegsadaa xagga ideology-ga marka qofku caqiido faafinayo inuu ku saleeyo taariikhda iyo caqiidadiisa marka qofku inuu taariikhda xaqiiqadeeda yaqaano diintiisa uu wilaashamaysa jazaak allah khayr sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan aad iyo aad baad mahadsan tahay waqtiga qiimaha badan aadna siisay idinkuna dhammaan daawadayaal barnaamijka caweyska culimada oo marti kulankan inoogu ahaa sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan ayaan intaasi kusoo koobaya inta aynu kulankan mid lamid ku kulmi doono aniga iyo bahda barnaamijka waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh